waxa ila jooga dabcan ciyaar galabta ku soo gabagooday halkaan oo ahayd ciyaarihii ugu dambeeyay gruubyada Armaan Xabado oo ku guuleystay ama noqday xidiga garoonka man of the match Armaan ku soo dhawow telefishinka Sal Cable mir awarakin isku gudameysay iyo xulkii gobolka Cayn markaa mataliseen bal dareenkaaga maanta iyo in Qandala ay ka soo baxdo group stage-ka oo halkaan man of the match ka digana xidiga garoonka noqota horta waa ku dhawahay Sal Cable runtii waxa suuqa dambeysay garoon cagaaran iyo mir awaare haddana waxaan joognaa degmada Boosaaso alxamdulillah inaan galabta ku guuleystay markii labaad man of the match kulli waxay taasi suurto gelinaysaa team ahaan kulli dafar kaliya form dhaqdo kaligay waxba kuma guuleysteen kaligayna meel kama soo muuqdeen laakiin team ahaan baan soo caawinay taasina waxa maanta iskala degmada Qandala macallimiinteeda iyo maamulkeedaba safarka dheerna waxaan soo galay Qandala ma in group stage ku hadhow kulli waxay ilaa inaan socono meesha ugu dambeysay qadarkaygu yahay waxaan rajaynaynaa inaan koobka halka ka guuleyso Qandala sida muuqata number 1 ku soo baxday waxay wajihi doontaa cid kale ku soo baxday dabcan number 2 groupka kale to rajada inaad koob ka qaadaanin oo magaaladii Qandala ahayd xeebadka aad geysaanin intee leegtay wallahi kulli kaalinta koowaad baan ka soo baxnay groupkayga group kale waxaan ka dhacnay degmada Booso oo ah martigeliyaashii kulli waa ciyaar adag degmadii martigelinaysa baan ku dhacnay sideedana home power baa jira waxaan ka rajaynaynaa degmada Booso ciyaar qurux badan kulli badiyaabo oo baadayno ciyaarahan iyo degmooyinka kuwaas dhaxgal waxayna fariin u tahay garoonkan Boosaaso laakiin ciyaaruhu dagaal iyo ma xifaaltan waxaan rajaynayaa rajadeedu 80% bay ahayd hadda 90% bay sii noqotay inaan magacaale xeebeedkii doon sii raacnay insha Allah Qandala ahayd kusoo dhaw macmiil adeega e-bank ee bangiga Salaam kaasoo lagu sameeyay dib u habeyn iyo casriyeyn ugu horeyn soo gal website-ka Salaam Bank oo ah salaambank.net